weli ma isweydiisay su'aashan maxaa dhacaya haddii aad lacag fara badan ku bixiso guri kiraa amba hanti kiraa halkii weliba sanado badan adigoon markaas waxba dhiganin dad badan ayaa maanta waxay bixiyaan lacag laakiin dadka hantida dhisa waxay isku dayaan inay iyagu samaystaan oo ay yeelaan guri ay iyagu leeyihiin sababtoo ah guriga marnaba ma aha keliyata meel lagu noolaado balse wuxuu soo kala noqon karaa saldhigga xasiloonida ee dhaqaale ee naftaada ama noloshaada oo dhanba muuqaalkana maanta waxaa ka hadli doonaa qodobka shanaad amba casharka shanaad ee aan ka baranayno buugga loo yaqaano The Richest Man in Babylonia haddaba saaxiib haddaad nagu cusub tahay nagu soo biid haddaad hore noola joogtayna muuqaalka leeg noo saar magacaygu waa Mr. Haybe markaad waxa uu asxaabtiisa u sheegay inay ku dadaalaan inuu nin waliba samaysto guri uu isagu leeyahay yacni hanti guri oo isagu leeyahay sababtu waa mid fudud waayo waxaad yaraynaysaa kharashaad badan oo kaaga baxayay hanti ku kiraysan yacni guri aad kiraysatay waxaad helaysaa xasilooni waxaanad dhisaysaa hanti muddo dheer ku haysa ama muddo dheer sii jiri kartaa waayo lacagta kirada lagu bixiya sanado badan marnaba ma abuurayso lacag kale oo kuma dhalayso oo tusaale yaro kooban haddaan soo qaadano nin magaciisa lagu magacaabi jiray xasan ayaa waxa uu muddo 15 sano ah bixinayay lacagta guri u kiraysnaa muddo 15 sano ah muddo badan kadib waxa uu ogaaday soo kalena uu xisaabiyey lacagta guriga kirada ay kaga bixi jirtay in markaasi ay u goyn lahayd soo kalena ay u dhisi lahayd guri ka weyn soo kalena ka fiican gurigan hadda uu hantida ugu jiro ama yacni uu kiraystay dhanka kale nin lagu magacaabi jiray maxamed oo isla saaxiibkii ahaa ninkan xasan waxa uu qorsheeyey muddo kooban keliya in uu guri isagu uu leeyahay yageelo soo kalena uu dhisto yacni hantidaasi uu meel dhigto dabalka waxaan ka baranaynaa in ninka xasan loogu magacaabo marnaba dhaqaalihiisaasi koritaan samaynayn beddelkeygana kharash badan ka baxayo maadaama uu ku jiro hanti kiraa halkan ninkan maxamed loo yaqaano uu ku jiro hanti uu markaas isagu leeyahay hantidiisina ay kor u kacayso oo markaas uu noqon karo qof wax dhigan kara maadaama uusan jirin kharash kaga baxaya guri kiraa waxaanad ogaataa guriga waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan wuxuu ku siinayaa ammaan wuxuuna ku siinayaa soo kale xasilooni wuxuuna noqon karaa hanti qiimaheegu mar walba sii kordhi karo laakiin tan macnaheegu marnaba maaha inaad ku degdegto go'aan kasta oo ah amba la xiriira iibsashada guryaha markaygana waa inaad isweydiisaa ma awoodaa kharashkan sidoo kale waa inaad isweydiisaa goobta uu gurigan ku yaala ma tahay goob munaasab ah yacni igu fiican qoyskayga ku fiican haddaba saaxiib muuqaalkan haddaad cashar ka baranayso waa inuu noqdaa casharkani lacagtu ha kuu dhisto hanti anaa ku luminin kharash aan marnaba wax ku reebahayn sidoo kale nala wadaag ma waxaad doorbidi lahayd inaad guri kira gasho aad lacag badan kharash karayso mise waxaad doorbidi lahayd inaad hanti adigu aad leedahay hesho si aad u hesho xasilooni iyo deganaan iyo sidoo kale korriin dhaqaalaba muuqaalkiina maanta intaanu ka eegay saaxiib waa anigoo Mr. Hayba haddaad nagu cusub tahay saaxiib nagu soo biir haddaad hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar soo kalena bartiina saaxiib nagula noqo si aan waxyaabo badan u kala faa'iidaysano